hadallooriyaqiyo hawraarta mansada halkararilo heeseya gabayada halku eebadhigayey hargeysa السلام عليكم دمان أصحابتا كحران channel kan maanta waxa aynu tagi doonaa soona arki doonaa xaafadda New Hargeysa iyo ilaa iyo Halleeya waxa aad muuqaalkan ku arki doontaa dhismayaasha ku cusub deegaankan iyo xaafadanba sidoo kale waxa aad arki doontaa jagooyinka bannaan ee wadooyinka saaran ugu dambeynna waxa aynu tagi doonaa ilaa iyo Halleeya ee daawasho wacan waxaad arkaysaan in wadada la dhisay sidoo kalena aad iyo aad ay u qurux badan tahay xataa waxa loo sameeyay wadooyinka ishaarooyinkii kala hagayay gaadiidka sidoo kale wadadan guryaha iyo meheradaha ku horyaala amba ka soo horjeeda waxa ay haystaan space aad iyo aad u ballaaran oo haday tahay xaggii parkinka iyo meelihii dadku ay marayeen marka wadadani maadaama ay tahay wadadii magaalada looga baxay dhanka iyo bariga inageynaysa magaalada Berbera waa wado aad iyo aad u ballaaran intii ay dawladda hoose gacanta ku haysay waxa ay ka hirgelisay inay wadada dib u cusboonaysiiso inta kaga soo aadan iyada oo ay gaarsiisay ilaa iyo kantaroolka waxaad arkaysaan in dhismayaal cusub laga dhisay dhismayaashan oo u kala baxaya qaab baayac mushtara sidoo kale ganacsiyo iyo goobo gaadiidka lagu iibiyo sida motoriska amba waxweyn shirkadii baabuurta iibinaysa wadada imka waqooyiga inaga qabanaysa waa wadadii tagaysa xaafadda Hodan Hills waa xaafad aad iyo aad u cusub sidoo kalena ay degaan dadyooga waxa weeyaan maalqabeenka ah ee inta badan magaalooyinka iyo qurbaha aad uga soo shaqeystay marka waxa aynu oran karnaa xaafadda Hodan Hills waxa u badan qurbo joog iyo dadyooga hantiilayaasha ah ee degan magaalada Hargeysa waana xaafad aad iyo aad u qaaliya qiimaha jagooyinka ugu ay ka bilaabmaan $20,000 $30,000 ilaa iyo $60,000 sidoo kale xaafadda New Hargeysa iyo wadooyinka waxa aad iyo aad ugu soo batay shirkadaha iibiya batroolka iyo gaasta aynu nidhaahno kaalmaha shidaalka iyadoo la casriyeeyay si waxa weeyaan loo adeego oo looguna qabto cid kasta oo u baahan adeega shidaalka hadda waxaynu soo gaarnay Giirawiish oo ah goob ganacsi oo inta badan lagu yaqaano in ay ka shaqeyso qaadida alaabaha waaweyn sidoo kalena ay isticmaalaan gaadiid xamuul ah cagafyo iyo gawaadhida wiishka hadda halkan aynu maraynaa waa qaybtii gaadiidka motoriska daabshiil oo iyaduna bilic ku soo kordhisay xaafadan sida aad arkaysaan gawaadhidaasi waxay ku wada jiraan baarkin aad iyo aad u qurux badan wadadana ka baxsan waxa ay keenaysaa markasta oo wadada laga durko qurux iyo in goobaha ganacsiyada kala duwan si wanaagsan loo arki karo gaadiidka hadda halkan yaala waa gaadiid ka yimid magaalada Berbera waxaanad arkaysaan gaadiidkii jiidkaha iyo gawaadhidii caandhameydla loo yaqaanay oo ku nasanaya goobtan amba alaaba ku dejinaya amba ka qaadaya wayahay asxaabta ku xidhan channelkan haddii ay tahay markii koobaad ee aad daawanayso amba aad arkayso xaafadda New Hargeysa gaar ahaan wadada dhex marta ee tegaysa ilaa Halleeya subscribe like iyo share waad ku mahadsan tahay sida fiican aad ugu xidhan tahay kanaalkan
sidoo kale waxaa jira shirkado fara badan oo halkan ka samaystay hangaro amba goobaha lagu kaydiyo alaabahooga sida aan hadda soo arkaynayba. Waddadanna waa waddo aad iyo aad u ballaaran, gawaadhidu inta badan waxa ay ku socdaan xawli. Waxaa loo baahan yahay maadaama magaaladii ay ku dhex jirto inaad ayar u socoto. Calaamadaha lagu dhejiyey waddadana in la raaco. Waxaad arkaynaa in goobo fara badan ay madhan yihiin oo waddada bartankeega aynu idhaahno barbarkeega saaran, haddana u baahan in la dhiso. Marka goobahaas oo kale waxaa qurux badan in qofku intuu deer ku xidhi lahaa si wanaagsan uu u dhiso oo qarashka kaga baxaya deerka labada uu dhismo geliyo si dhismahaas looga faa'iidaysto oo waxyaalo kala duwan loogu isticmaali karo. Halkan waxaa aad ugu badan shirkadaha inta badan ka shaqeeya gaadiidka, sidoo kalena gaadiidka shirkadaha banjarka waxaa ka shaqeeya spare partska gaadiidka, maadaama waddadan ay tahay waddadii tegaysay bariga magaalada. Waxaynu arkaynaa in inta ugu badan magaalada marka laga sii baxayo la isticmaalo gaadiidka waaweyn. Xaafaduhu waxay ku horumaraan markastoo ay yeeshaan bas amba gaadhi tegaya xaafadaas. Imika waxaynu arkaynaa goobo aad iyo aad u ballaaran haddana aanay dad badani deganin marka aynu waddadan marayno. Deerar waaweynna ay ku xidhan yihiin. Haddii si toosa basasku ay u gaadhi lahaayeen oo markasta si wanaagsan basasku ay uga soo noqon lahaayeen, qiimahana la jabin lahaa, waxaa hubaal ah in si wanaagsan xaafadda qaybaheega dambe ay dhismi lahaayeen. Marka arrinta ku saabsan deerka caqabad ayuu ku yahay horumarka magaalada. Halkan hadda aynu soo gaadhnay waa Kuwaitigii, waa iskuul lagu barto waxbarashada qaybteeda hoose, farsamada gacanta. Sidoo kale waxa ay leeyihiin qayb beera ah. Dhanka koonfurta waxaa inaga qabanaya dooxii magaalada Hargeysa kala qaybin jiray oo xaggan dambe ka soo maraya. Dhirta faraha badan leh ee noo muuqda dhanka koonfurta ee naga qabanaysa waxay u dhow yihiin waa dooxa. Halkaasoo kale waxaa ku qurux badan in laga samaysto beerooyin kala duwan si looga faa'iidaysto biyaha dooxa magaalada Hargeysa. waxyaalaha asaasiga u ah marka xaafad cusub la rabo in la camiro waxaa ka kow ah inay biyo leedahay, inay leedahay laydhkii, in internetku si fiican u soo gaadhayo, sidoo kalena bas ku geynaya xaafaddaas. Intaa haddii ay yeelato xaafaduhu way camirmaan. Iminka waxaynu ku sii soconnaa dhanka iyo halleeya iyo kantaroolkii cusba. Halkan waa halka basasku indhahno bas caasiyadahay ku dhammaanayaan, balse haddii laga sii fogeeyo oo la gaadhsiiyo meel ka fog waxaa hubaala in si wanaagsan xaafadahani u camirmayaan. Sidoo kale waa inuu basku leexdo oo aanu waddada uun saarnaanin, balse uu u leexdo dhanka iyo koonfurta iyo dhanka iyo waqooyiga si xaafadahaasina ay u noqdaan xaafado aad iyo aad u ballaadha xaggii bilicda iyo dhismaha iyo qorsheyntuna ay daba socoto. ugu dambeyntii haddii aad u baahan tahay inaad goobahan oo kale aad ka dhisato dhismayaal iyo guryo, waxaad u baahan tahay inaad wax badan eegto, sida in goobtan ay leedahay biyihii, laydhkii iyo gaadiidkii imanayay maadaama magaaladii aynu ka soo durugnay. Haddii aad u baahan tahay inaad goobahan oo kale dhul lagaaga iibiyo
commentiga xagga hoose noogu reeb. Sidoo kalena waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa qaybta sectionska contactka yaala. waanaad mahadsantihiin. waxaan soo gaadhnay barnaamijkii muuqaalkeenna ku saabsan xaafadda New Hargeysa ilaa ay laga gaadhayo Halleeya. haddii ay tahay markii kugu horreysay, subscribe channelkan si aad u ogaato xogaha ku saabsan dhammaan magaalooyinka iyo dhismayaasha hadday tahay, sidoo kalena goobaha quruxda badan ee magaaladan ay leedahay. waad ku mahadsan tahay daawashada. waa inoo iyo muuqaalkan muuqaal xiga.